السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabta ku xiran YouTube Carabi Official. Maanta halkan waxaan ku qaadan doonaa mid ka mid ah tennisiyada kaasi oo ah luqadda Ingiriishta asaasi oo ah ayaan ku qaadan doonaa tensigaasi oo loo yaqaan present continuous tense. Tensigan ardayo marka aad qaadato waxaan kuu ballan qaadayaa inaad awood u yeelan doonto inaad samayn karto jumlad Ingiriisi ah oo la fahmi karayo inaad samayn karto ayaan dhamaadka casharkan ku ballan qaadayaa. Haddaba si aynu si wanaagsan soo fahanno xagga hoose aynu dedeginaa tensiga sharaxaadiisa ayaynu ku horeynaynaa si aynu si fiican soo fahanno. Halkan waxa ku yaala ardayow aan aad soo dhaweeyo present continuous baa lagu yidhi tense also sidoo kale knowing as waxa loo yaqaanaa present progressive magaca kalena waa leeyahay. waxaan ku yidhi magaca kalena wuu leeyahay present progressive tense. is a grammatical tense used waa tense grammar ahaan loo isticmaalo describe in lagu qeexo ama lagu sharaxo actions ficilo that kuwaasoo are happening dhacaya at the moment of speaking haddadan marka la hadlayo dhacaya. tensigan ardayo kaliya waxa uu dhacayaa waqtigan taaganka ee hadda socda. tensigani ma aha tensi soconaya. tusaale dhow ayaan ku siinayaa ardayo. halkaas ayaan idhi b baan halkaa dhigay oo aan ka dhigay maxay baastigii lasoo dhaafay. sidoo kale waan soo socday halkan presentigii ayaan imi. presentiga 4 xaalo ayaa loo kala qaybinayaa. xaaladan haddaba waa xaaladda at the moment of speaking haddada aynu hadlayno labadaa qof ee hadda is hortaagan ee wada hadlayaay 2 saac ka bacdi hadalkoodu wuu dhammaanayaa waxaanu noqonayaa maxay past ayuu noqonayaa. lama odhanayo markaa waxaan hadda just nowdan dhaqayay lama odhanayo maxay waa past ee waxaa la odhanayaa waa present continuous waa taagantii socodka ama se qulqulka sameynaysay. war hadda meela socotaa waayahay oonamase waxa la yidhaha currently in progressive haddadan buu ku jiraa maxay socod ku jiraa. it also sidoo kale used waxaa loo isticmaalaa describe in lagu qeexo lagu sheego temporary action ficilada ku meelgaarka ah ee aan waaraynay sii jireen. waayo labadan shakhsi halkan ku sheegay markay hadalkoodaas u dhammaado ma aan noqon doono wax mar kale soo noqon doona waa wax markaa qura temporary ama ku meelgaarka kaliya taaha. waayahay intaa waxaan jecelahay inaad ila fahantay. haddana aan tegi doonaa qaybtii sare oo aynu isla soo fahmi doono tensiga sidaan u samayn karayaa qaabka aan jumladu samayn karayaa macallin waa qaabkee iyo su'aalo noocaas oo maskaxdaada ku guuxaya ayaynu kaga jawaabaynaa qaybtan dambe. aad u soo fiiri marka ardayow. waayahay sida guud ardayo waxaynu fahansanahay oo aynu naqaanaa hadalka inuu loo qaybiyo 3 xubin. ardayow hadalku waa hadal caadi ah oo loo yaqaan affirmative luqadda Ingiriishta ama waa hadal negative ah oo diidmo ah oo aad wax diidayso iyo hadal qaab su'aaleed aad qofka su'aal weydiinayso. 3daas ayaa si guud hadalku u qaybsan yahay. isagoo 3daa u qaybsan ayaa waxaynu ku salaynaynaa tensigeena qaacidadiisa mid walba qaabka ay isu bedelayso marka su'aasha laga dhigayo iyo marka diidmada laga dhigayo iyo marka hadalka caadiga laga dhigayo qaacido kasta ay way isbedelaysaa qaabka ay isu bedelayso ila soo fiiri markaa. waayahay waxaan ku bilaabaynaa affirmative ama hadalka caadiga ayaynu ku bilaabaynaa. estan waxay taagan tahay subject ama se ficil sameeye. haye intan waa maxay ardayow? intan waxaa la isku yiraahdaa maxay verb to be na waa la isku yiraahdaa
waa intii tensigan kaga duwanaa tensiyada kale. halkan ayaan gaar ugu arki doonaa am iyo is iyo r subject-yadan waxaynu hore u soo qaadanay 10 ahaa 7 magacyaal ama se 7 ficil sameeyay. 7 mid kastaayba 3 mid ku kala hagaagi doona. haddaan dib u celiyo intaas oo aan idin faa'iideeyo oo aan ku soo celiyo 10kii hore si aan si fiican isula fahanno 10kan. halkan s to taalo ayaynu haddaba kala qaadaynaa. subject-ga ayaa 7 ahaa. tagas markaa ay furo 7 waxay ahayd she, it iyo he, they sidoo kale iyo we iyo you iyo I. arday meela socota hadda intaas 3 halka yaalay waxay kaliya ta qaadanayaan maxay is bay qaadanayaan it, she, he, it is bay qaadanayaan ista kaliya ta 3daas waxay leeyihiin istaas ayaa halka gelaysa oo mar walba hadduu she yahay she is fadlanaysa, it haday tahay it is fadlanaysa, he hadduu yahayna he is fadlanaysa. waar hadda meela socota waxaa soo haray intan baa soo haray markaa they, we iyo you. intaasuna waxay qaadanaysaa maxay r ayay qaadanaysaa. r taas ayay qaadanaysaa ardayo. r taas ayay gelaysa. tan u dambaysa iyadu way ka duwan tahay. marka si mid walba si aan ugu qoro tan am ayay qaadanaysaa ayaan ku uri. sidoo kale tanna waxaan ku uri 3danna waa maxay isku yihiin iyaguna r weeye. halkaan waxaan kugu soo sheegay maxay is baan ku uri. is ay intaas iska qaadanaysaa. warta meela socota intaas ayaa waxaan ku sheegay qaabka ay u kala qaadanayaan am, is iyo r. marka meesha ficil sameeyuhu he yahay odhan maysid he, r odhan maysid ee he waxaad u doonaysaa maxay is bala raadinaysaa. waa yahay iga soo baabi markaa. waa yahay aan haddaba soo eegno dib 10keena ugu soo noqono. subject-ga balaas loo geeyay am iyo is iyo r ku habboon yahay aad gelinayso verb-kaaga oo ing wata. tusaalahan soo fiiri markaa she gabadhu she is ay qaataa xagga hore inuu soo aragnay. verb-kii watch waa maxay daawashada ing la raaciyay. she is watching TV now. hadda TV-ga daawanaysaa iyadu. ka waran qaabka aad u samaysay maxay jumlada ardayo imika kaliya waxaad bedelaysaa bartaasun. halka verb-ka ayaad bedelaysaa oo ka dhigaysaa maxay verb kale. tusaale ahaan waxaan oranayaa oo kale walk waan ka dhigayaa oo kale walk. maxaan walk u baahanahay inaan raaciyo walk waxaan u baahanahay inaan raaciyo ing inaan raaciyo walking ka dhiga marka waa inaan idhaahdaa walking. she is walking way soconaysaa. ardayo waxaa jira 10 aan soo geliyay YouTube-ka oo ah vocabulary. 10kaas dib ugu laabo si aad si wanaagsan u hesho halka ay ku jiraan ereyadu sida watch, walking iyagoo ka fara badan aad qaar badan u soo hesho. 10kii hore ku laabo waxaan soo dhigi doonaa description-ka. waayahay soo noqo labaad waxaan isla fahnay hadalku markuu caadiga yahay subject-ga inuu horeysiin doono isla markaana lagu xigjin doono auxiliary verb-ka ama se verb to be-ga oo intan isku ah. intan 3dan waxaa la isku yiraahdaa waan ku uri magacaasaa la isku yiraahdaa. note-ka ku qora ardayo waxaa la isku yiraahdaa verb caawiya la isku yiraahdaa ama se auxiliary verb ayaa la isku yiraahdaa. marka koowaad subject-ga ayaa lagu bilaabaya 7dii aan soo aragnay ah. auxiliary-ga kii ku habboon ayaa la raacinayaa verb-kiisa ing wata. waayahay qaabkaas waa hadalka caadiga. qaabka negative-ka ayna kaliya waxa isbedelay not baa soo biirtay. halka markaad tiraahdo he is markaad tiraahdo
not baad ku xijinaysaa. He is not watching TV right now. TV hadda ma daawanayo. Marka ay ardaygu su'aasha tahay waxa soo biirayay waxa weeye kaliya waxa soo hormaraya shaygan ku soo sheegay auxiliary verbka ee ahaa am, is, are saddexda noqonayay ayaa xagga hore imanaya isaga oo loo eegayo shayga ka dambeeya ee maxay ah subject. waayo subjectgii xaggan markii hore inuu jiray ayaa xagga dambe galay. marka waxa la eegayaa halkaas hadduu yahay hadduu yahay halkaas oo kale, hadduu halkaas noqon lahaa iminka qasab waxa noqon lahayd halkan hore inay is noqon lahayd oo la yiraahdo is he listening to me, miyuu dhegeysanaya isagu. marka waxaad ogaatay halkan hore auxiliary-ga taga dabcaawiyaha taga am, is, are saddexdan ka taga wuxuu jaan goynayaa oo uu go'aaminayaa maxay xagga dambe ee halkan ah ficil sameeyaha noocu noqon doona ma you waxay qaadataa are, ma they, ma he. inta inaad la fahantaan jecelahay. waayahay isku soo noqon labaad haddana intaa waxaan ku soo sharaxay tensigu wuxuu ka hadlo qaabka aad u samayn karto jumlad. sidoo kale waxaa ka soo hadlay subject oo ficil sameeye ah iyo intay u qaybsamo iyo qaabkay u kala qaataan am iyo is iyo are say u kala qaataan. ardayow hadda awood waxaad u leedahay inaad samayso 3 jumladood oo kala ah mid diidmo ah, mid caadi ah iyo maxay mid su'aaleed. kaliya waxaad u baahan tahay waa maxay waa vocabulary ama waa erayo. halkaan waxaad ugu laaban kartaa casharkeennii kan ku horeeyay ee aynu ku soo qaadanay erayada. barta waxaa noogu ekaaday tensigeennii present continuous tense oo aynu ku soo sheegnay tensiga ka hadlaya dhacdada hadda soconaysa dhacaysa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.